ilmihi loo waayay xalanay ku jiraan aniga ilmihi watay amal beeca loo waayay maadaama adiga abeed ku tiri xalanaan kala soo hadlaya askari waliba askari miyaan dhahay in waxa ah meesha hoola shaqo u socday ilmaada anaa ku haayo imo uu ibari walaalo lacag xataa waa ku soo dira innaha iga diibin u dhahay magaalada Muqdisho in mudooyinkii dambaba aad looga sheekeynayay in la waayo caruur yar yar oo magaalada laga waayo kuwaas oo qaarkood dib loo helo qaarna aan dib loo helin haddaba sheekadan waxay qusaysaa xaalad cusub oo nala wadaagayo walaalkay Maxamed Cabdi Cali oo loo yaqaan daacad oo mar uu tagay magaalada Muqdisho la kulmay arin yaabkeeda leh oo ka soo gaartay kadib markii uu arkay gabar luntay gudaha meel ku dhow xerada Xalane Maxamed Cabdi soo dhaw waxaan jeclaan lahaa bal ugu horeyn qisadan aad nala wadaagayso oo ka dhalatay markaan fiirino baafinta la xiriirta gabdhaha ama caruurta Soomaaliyeed lagu waayo magaalada Muqdisho ayaan jeclaan nala wadaag aad u mahadsantahay ayaan la adeeg iyo wali salaama daawadayaasha ha noolaato maalin khamiisa koodi bishii sagaalaad sanadkan aan ku wada jirno 2020 ayay qisadan ugu dhacday 2020 sanadkan sii dhamaanayo maalin khamiis ku beegneed koodi bishii sagaalaad sida dadka inta badan u yaqaaniin garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho saddex albaab laga soo galaa albaab waa number 4 midna waa Marina Gate midna waa Medina Gate hoola shaqo anigu ee boorka ugu socdo ayaan waxaan ka galnay school police ama Marina Gate checkpointiga xeyndaab waxa yaala marka amisom nabad sugid iyo military ugu yaalo marka gaari aad galaysid laba albaab laga galaa albaabna waa VIP albaabna dadka shaqaalaha iyo dadka shaqooyinka u aadaya ka gala garoonka diyaaradaha gaarigi marka gashid qaybta VIP-da lama marin qaybtan kala mareeyay waxa qasaba marka ilaa 6 ilaa 7 baawur inay istaagto kadib eeyga la soo bixiyo oo hubiyo in gaarigan wax ku xidhan in kale dadka saaran darawalka injiga u furaa qaybta hore gaariga waa la daminaa albaabada loo wada furaa waa la wareega sun kala soo furaa sida adigu dhoofayo mashiinka dadka oo raajada la soo maraa waa soo lugeynaysa jagboonti ka xageeyo oo bir ku xiran tahay oo fariisanaysa marka aad ku sugaysa ilaa intuu ka fasaxayo ninka eeyga wato marka gaariga ma sugaysa gaariga sugaysa adiga waa lagu soo baaray jagboontiga jaa waa soo martay wajaagabka telefonka meesha dhigaysa raajada meel qof kasta fahansan dadka aad u wada yaqaan marka qofka gaar loo baaraa gaariga gaar loo baaraa qofta waxa baaraya mashiinkaas furaha iyo waxa wadatid xagga lagu soo marsiinaya waxa laga baaraya bambooyin iyo hub la mari kartid hatta furo waxa qaylinayo gaarigana eeya hubinaya marka meesha anagoo fadhino Soomaali ugu badneen iyo waxaan u maleynaa laba qof ajnabiya meeshaan fadhinay ayaan loo yarkii garawal marka waa la fasaxay baabuurka anaga gaarigeena gaariga ugu horeeyay markii la fasaxay inta aan la fasaxin ka hor marka la fasaxo bira jirto oo ninka ugu dambeeyo amiso meesha ka qaado intoona qaadin wiil Soomaaliya marka aniga iyo yar kale oo Bashiir la dhaho inta kale oo ka tagnay oo hoola shaqo u soconay iyo wiil kale oo seedigi isla soconay meeshaan taagneen gaariga yimid oo meesha ku kala wareegay wiil iyo gabar yar oo aad u yaraa meesha ka soo degeen marka wuxuu dhahay albaabka geeya dabcan waan nahay marka aniga gaari yar oo Soomaaliya u taqaana markeeto ama wax santan lamid u ahaa gaari cad oo ahaa si fiican u xasuusto runtii markaad ka gudubteen controlka waay anaga controlka ku gudubnay gaarigeena ku guda jiro jagboontiga eeyga baarayo laakiin anaga waa marnay gaariga marka la soo fasax kadib gudaha ku jirnaa markaas aan kula hadlayo xeyndaabka xalanaan ku jirnaa marka meeshaas waxa ka xageeyo waa baabuur amaan waay baabuur amaan wixii soo jeegareeyo waa isku dhamaatay xalanaan ku jirtaa hadii meesha abaas galaysid wiil iyo gabar yar oo ayaan la aan ku qiyaasay dabcan 7 iyo cunugo jira 4 ilaa 5 ka soo degteen oo dabcan diif ka muuqato boor ka muuqdo dabcan aaba Soomaaliyeed ah waa walwale isla marka caruurteeda isu soo warantay mid kale meesha aad looga cawda ninka wuxuu dhahay aan ka xasuustaa nin madooba ama amisom ama kamida ciidamada nabad ilaalinta u jooga dalka ay dhaxo ilmaha siigi ayaan loo qataraha ka imaan doono kadib aan galay xilligaas uma fiirsanin waa u tagi doonaa ilmaha laba cunug ay ahaayeen oo laga dajiyay gaariga uu ka soo dajiyay wuu kala wareegay oo iska dhaqaaqay gaarigan ayaa waday gaariga wiil Soomaaliya wado ayaan la markuu kala firiyay oo dhaqaaqay gaariga la fasaxay aan ilmiyan ku dhigay marka dhanka uu ka yimid u noqday dhanka uu ka yimid u noqday jagboonta kala muu baahno birta hadii ayaan la xamar waa tagtaa ama waa taqaana baaritaanada hadii xeyndaabka birta inta ka joogtid oo aad dad dhigtid waa kala wareegi kartaa halkaad waa ku laaban kartaa baaritaanka loo baahan gudaha ku jirto marka ninkan gaariga guduhu ka yimid
isla gudihii u noqday wuxuu rabay carruurtan in banaanka loo inuu saaro banaanka loo saaro marka taa macnaheedu waxay tahay carruurtan gudaha laga keenay gudaha laga keenay airportka gudaha xalana laga keenay Waa. xeyndaabka amisom nabad sugidda wax dhan way baas gareeyeen Waana wiil- gudaha ku jira waana wili wiil. gabar yar aad u yar ahaayeen da'dooda maxaa ku qiyaasleed gabadhaasaan ku sheegay 7 wiilkana 4 ilaa 5 waay weliba waa weydiiyey adeer inta maxaa kasoo doonteen wiilkii ila socday iyo yar kale way qalqaleen yar kale oo la socday seedigi aan ku sheegay waxaan ku sheegay waa serious waay gaarigii kaloo raacay oo imaado raacay ilaa xamar uu joogay carruurta dhibaatada ka imaatay waxaa ogaa aniga yar kale ku dhignay biyaan wadaan siiyey waa wadna carruurtii waxaan dhahay adeer number mataqaanaa haa aabaheed aan wacay halo gabadha la hadal gabadha mataqaanaa haa anaa dhalitay joogtaa suuqa xoolaha xalanay ku jirtaa aabaheed ayaan ana u jeedo oo isku dhex yaacay askariyo baba askari miyaan ku dhahay inta carruurtaada ku arkay fadlan soo doona intaan ku heynaa marka wiilku dhalay bas gabadha gabadhoo dhalay waay marka hore waxaan umaleynaya inay isku aaba yihiin kadib aan ogaa doonaa waay misla shan misla dhalan Waa. abti ilmeedina haynaan jecel waay wiilka maba hadli karin aad u ilaala gabadha maasha allah nabarka abeed kor ka xifdisaneed iyo nabar kaloo ayeeye ah lambaradii oo wacay teleefonkayga ayaan le intaan sii socday waxaa isoo wacda hormuudka ma qiyaasi karo waa daala ayaan isla soo wacay gudahaan geliyey qadaan soo siiyey aabaheeda igu soo celiy wuxuu dhaha waa soo socdaa maamo kale ayeeyaa isoo wacda waa soo socdaa markay imaadeen gudaha inaan ma soo geli karaan marka ayaga waay saacadda 9 saac ay bari ahayd markii ilmaha arkayay 11 saac marka haddii mar eega baxo gaari soo geli karo gudaha ma jiro marka gaarigaagii aad saarneyd waa gudbay Aniga waa waxaa gudbay. seedigaa raacay gudbay. mami yarkii gaarigii kaloo raacay aniga ilmihii aan qaadnay Waa. meel cuntaan geeyey oo maqaayad ah oo magaca dabcan ma xasuusta laakiin oo istar laro istar dadka muqdisho jooga waa yaqaaneen ama dadka elaboorka istar aan qada kasoo siin ilmihii wahaay adeerayaal iyo abtiyaal iyo eedooyin dad badanaa imaadeen oo kuwa amisom waxay usoo sheegeen wiilasha nabad sugidda soomaaliya u joogo in ilmo laga soo xaday ninkeena uu eelboorka ku jiro ilmihiina eelboor ku jira nambarkaana aa wato rag nabad sugidda ka tirsan xataa isoo wacay dhahaayo inaan ku aragnaa rabnaa banaankaan joognaa aniga khatarta ayaga ay ka ululayaan ayaan la iima muuqato waxaan ka ululayaa wiil iyo gabar yar oo meeshaan lagu soo daaya saacadda ay sii gobolka sii dhacayo maqrib sii naqanayo dhibaatada kasoo gaari karto ciidamadan ajnabiga ah adigana marka meesha maxaa u tagtay inaad safarto mise qof aad dhaweynaysa danooyin dana tikidaan soo bedelayna u gelayna gudaha waay marka tikid bedelaysa inta badan garoonkay ku yaaliin saasaan u gelayna marka hoola shaqo tiiskaagii wax kaaga cuslaaday arrintan dhibaato kale ay u coslaatay Waa. baan dhahay intii carruurtan yar oo soomaaliyeed inta ugama tegi kartid waay dabcan ayaa la markaan sii fiiriyo dadkaas waxay ka ululayeen marka kadib ay ugu dhalatay adima ogeyn xaaladda ma ogeyn xaaladan iyo dhibaatadan marka qaar waa maqli jir laakiin ayaan le way sii weysa damiirka in ilmihii meesha joogo oo masaakiin oo carruur aan meesha uga tago eedu marka waxay noqotay ilmihi la waayey ilmihii la waayey xalanay ku jiraan aniga ilmihii watay camal beeca loo waayey maadaama adiga aad aabeed ku tiri aabaheed xalanaan kaala soo hadlaya Waay. askari weliba askari miyaan dhahay nin waxaan ahay meesha hoola shaqo uu socday ilmaada anaa ku hayo imow wuu i beriyey walaalow lacag xataa waa kuu soo diraa cidnaha iga dhiibin uu dhah ayaan low taa xataa waxaan kusii adkeynayaa family problemka dhibaata ka timaado Waay. waxaan qiyaasay gabadha iyo wiilka isqabay oo carruurta gabadha dhalay islama nooleen gooni iisoo wacayan idhahayeen aabeed ha nooga dhiibin annaga waxaan ku adkaystay in gabadha maadaama aabeed ee sheegatay familka problemka ayaga inay xalistaan laakiin aniga gabadha aabeed aan ku wareejiyo aniga aabeed inuu yahay in kala ma aqaan laakiin nambarkaan aqaan nambarkaan aqaana ayadaa tiri aabahee waa heblo Waay. saas ayadaa taqaana marka marka qofka nambarkaan lahaa qofka nambarkaan laha u dhiibayaa adinka kadib ka xaajooda wixii famil iyo waxa aad tihiin iyo dib uga xaajooda hooyadu waxay ku leedahay iga dhiibin ha iga dhiibin iyo ayadii soo waxay leeyihin ninkaas gacanta ha ka saarin waay annaga waxaan ku walwalay in gabadhan horta aan ku simo qof kamida waalidiinteeda siiba aabaha ay sheegatay kadib ayaga yaqaana nambarkaagana asaas soo siiyey nambarkayga asaas u siiyey sababtoo way shoogeen dadka markay maqleen ayaan le ilmihii xalanaa lagu hayaa welal uma dhineen maxay tahay sababta markaas sababta waxaa la sheegay ayaan le in xalana ilmaha lagu problemiyo ama lagu qasho something like that ama laga dhoofiyo waa xamar problem ka jira waay Waa. arrinta hadda mustafa uu ka dhawaajinayay oo barnaamijka laga horreeyey gabar kaloo abtiga la jirto oo ayadana dugsi loo diray xaafadda tawfiiq yaaqshid ilaa hadda waa laahay ayaan le 3-4 sano ka hor ay ahayd lama problemka aad u badan yahay waa jiray 6 sano 7 sano jirtay Mm. ilmahaas markiiba mar la qaado lama arko waay tan markii marka wada marka gabadhii meelaad geysay maqaayad cuntaad siisay waalidka sugaysa waalidkan sugayay way soo waceen amisom ma soo geli karaan marka nabad sugidday u madeen waxay dhaheen ninaa ilmaheenna haayo eelboorkoona ku hayaa waa kanaa nambarkayga isu siiyeen marka ninkii soo wuxuu dhaha ilmaha soo bixi keen waa soo baxna gaarigan soo qaadanay gaarigii gadaalaan kusoo baarkin marka hadhow lugan markaan laabanayno inaan lu ku galno waay waa soo baarkin waa imaanay kuwii waxaan dhaheen marka gaariga soo qaaday ilmaha xagga waa loo diiday haddana gaarigii uu soo dhaqaajiyey banaanka markaan usoo baxnay ninka albaabka taagnaa oo nabad sugidda ka socdaa wuxuu dhahaa ilmaha waa xaday hadalka anaan ku sheega waxaan ku dhahay nin mas-uul ahay indhaha aniha ii shidanin
واسكي والمرك ساعدنا لبلا وحرنته له ilmaha afduubanaysa ilmaha wadanaysa waay waxaan ku dhahay ilmahan ma afduubanaynin damiirka iyo Soomaalinimada iyo Muslimada isii ina caawiyo waxa afduubanayna malaha ni waa qaldan tahay haddaan afduubanaan ma hadda afduubanay ma keenin anigana saayil hadlaysid waa qaldan tahay waa xiran tahay waxaan ku dhahay meel kasto aad jeceshaan kula aadaa saliga nakeen dad kale ay mideen wiilka aabeeda soo wactamay oo dhahay wiil walaalkii iga soo hormaray fadlan igu wareeji numberkiisa kan waa u dhiibay nin kamida dadka la socda dadkii mid ayaan ku qiyaas ilaa 20 qof dumar iyo xoog badnaayeen waxay iska soo jareen nimankaana wiil ilmahan xadayeen waay adiga problem kala galay iyo inaan leedaho inta istaaga yaa idinka dameena dad kale la waco meeshii aan nimid gabadhi marka adeerkeeda ku wareejis gabadh inta adeerkeeda ku wareejinin waxa la horta in la baaro waa inuu soo farxumeeyay inuu dhibaato u geystay waay haddii xataa ayaan ilaahay ma ka dhigin laakiin oo ninka ilmaha keena aan ka qabto oo dhibaato geysan lahaa aniga doosh saarnaa lahayd walow inta badan marka dambe la isbaari lahaa iyo wax kale la mari lahaa meesha marka gabadhi waa la baaray telefoona laga duubay waxaan aad ugu mahadcelinaa dadka meeshaas jooga ciidamada nabad sugidda militariga qaar kamid ah waxay soo jeediyeen in haddii xataa dadkan ilmaha lagu wareejiyay markay qaadaan dhibaato geysan karaan inay horta wax duubaan ninka taytalkiisa ayaga cadeyn laga rabo magaciisa uu sheegay hebel hebel xilligaas duty shaqadaas ku jiro saan hebel hebel waa soo joogna ilmihiisa la wareystay ayaan la ilaahay wuxuu ugu badbaadiyay marka fiicanta ama caawinaysid ilaahay ma ku dayacaayo gabadhiga hadlayso waxa kale ayaan loo kaasoo iloobo oo ka sii naxdin badan marka la weydiisay ku gasheen Allah garoon waxay dhahday iskaga soconay booyad meelaan ku soconay waxaan tagnay dhahday meel kuleel badan sida dadka ay sheegayaan marka xeyndaabka diyaaradaha garoonka markay tageen diyaarada meesha taageen motor kuleelkeeda ka soo carareen saddexdii galabnimeed gudahay galeen ayaan ku galeen ma waxay gabadhu waxay leedahay u soconaa iska galnay meel kullu aragnay meel kullu aragnay tir marka u soconno marka waa meesha diyaaradda booyada qashinka qaadaan marnay tiri kadib nin madow aan la hadlay meesha hoostiisa aan marnay dhahday gudahan galnay marka ilmaha waa soo lumeen xarada iska ilmaha si oo kama u soo galeen dugsi hol wadaag in deganayeen aan jecelahay si u socdeen ay meesha soo dhex galeen ayaan marka qoladan xalalo joogto dadkii dhalay iyo wax ma raadinine albaabka ku soo tuureen wiilka Soomaaliga keenayo aanu keeni anaga meelo keen dabcan ma aqaana marka banaanka ku tuuray kaliya wiilka Soomaaliga markuu meesha dhigo ayaan markaa bixiysid waa lugay karaa wuxuu ugu tala galay inta hadana jagboontiga wax ku soo laaba lahaa inuu iska dhigo u dhax lugeeya marka meesha waxa ku aadan dadka Soomaaliga jooga magaalada Muqdisho ay yaqaano isbitaal lagu magacaabo Yardameeliya meesha ku yaalo xagga marka bajaajada iyo waxyaabo badan ka baxo meesha uu talagal inay lugeeyaan laakiin damiirku uu sii way xarana laga keenay xarana gudahay ka soo ninkan guduhu ka soo bixiyaan leh waay jirkooda wax dhibaato laga ma helin markuu baaray yar maxamed la dhaho uu fiiriyay waalidiintooda mobile ka duubay wuxuu sheegay inay bad qabaan meesha aan ka sugay inay mahad celiyo dhibaato aan la kulmayaano gabadha yarada la wareystay maxay tiri gabadha si cad u sheegtay waxay tiri wiilkan waa noola keenay ninaan soo qaaday meesha saan gal gudaha kuleelka marka aragna aan soo baxnay nin madow aan la hadlay yarkan Soomaaliga kalena soo waday dhahday oo intana keenay intuu naga qabtay waxa kale oo ayaan la ku badbaaday meesha kaamirooyin ku xiran dabcan markaadan wax qalad gelina wax badan ku ilaalinay amba ku difaacay waxaan ku dhahay waxa la jeegaray kara kaamirooyinka meesha noola keenay halkaan ay ahayd xeyndaabka amisom xalana ay gudaheeda ahayd waay marka hadii ay jiraan ilmo dhibaato loogu geysto xalane ilmaas lama heleen hadda aniga qof dhibaato wata ahay lama baheleen gudaha la sigila jaa gudaha ku jireen ma iyaga laftooda macnaha xalana haday tahay meel ilmaha dhibaato absolutely lama heleen sax waay marka ilmaha gudaha lagu arkay waa iska soo saareen waa iska soo bixiyeen ayaan waxa dhici karo marka qaar in si qaldan wax loo fasiro ama si wax loo sameeyo qoftii la waayba la iska dhaxay xaqi waxa loo dhahayana dad cadaan iyo waxa degan iyo ajnabi laga wadaa waxa dhici karta ilmaha in lagu dhibaatiyay guriga kugu dhagan aadan ogeyn waay arinta marka saas uga lug baxday waxa uga lug baxay in xataa oo magacayga iyo numberkii iyo qof kale oo damiina in abtigay la waco la dhaho inta ma laga heli karo dhibaato badan aan kala calay xal anigoo marka hore iga ahayd caawin dhibaato aan kale waay laakiin muu sheegtay Ingiriis ka timid waa wala Sacuudiya hay taas ugu sidareed ina wadataa lagu maleenayo laakiin ninka waxa aad ugu mahad celinaa aabeed nin akhyaar oo ahaa wuxuu dhahay ninkan ilmaha oo xaday ama oo dhibaateynay mana soo wiciliheen ani marka ayaan le dabcan kalsooni oo mid kale waxa ay hormuuqatay wiil gabar yar oo meeshan ku jiro xilliga 9 saac iyo bargalino ama 3:30 ay tahay dabcan ayaan aad u walwalay waalidkaad waxaan aqsaneed ba waalidkaas la caawi ilmihiisa oo lumeen gabadhu waxay sheegtay in dugsi loo diray dugsiga ay ka soo dhunteen ayadii wiilkeeda adi maxaa darantay marka ilmo yar yar oo intaas la eg oo baabuur laga dejiyay oo ninkii ka dejiyay ka noqday wax crime kuma muuqan ayaan xilligaas crime ima muuqanin xilligaas waxa ay muuqatay ilmahan beelahada joogo ee banaanka yaalo ee u baahan caawinta
ويران gaarigii ka noqday in wax warbixinad ka sameeyay malaha waxay ku fiicneed maya waxay ku fiicneed gaariga keenay oo alaabta ilmaha keenay wiilka aan ku sheegay saydigay ayaa yarkiisa qaani waa weydiiyay كمبني هبل وكشقيا حول حمرك هدي لو سيبها راتر عوالي هلي لها ربحان ولا هلي كرا ولا هلي كرا لكن حلقات أنا إمام موقن إن دبعت ماشي أنا يكيم هادونت لكن عقد عروت ويل كان يدي قبل دانير كبد باد وأبوه دي والد كود قعنت كسار واي هدي المها لقاها لحرد حالنا أو سيد موقتني كان أنتوا سوق هذا وربين وإسك سارة وكرميش اللي جبحها محي وعي والد كود يا وعي قرضا أمازون ويلك حلين المذوبة إيسو ديبي yarka aniga shaqada aan qabto waxay ahayd inuu qabto yarka Soomaaliga ee ilmaha meesha ku dajinay exactly laakiin waxa dhici karta asna inuu ka cararay dhibaatada aniga galo kale ayaan wuxuu ugu qaatay 3 saac ilaa 4 saac taleefankii xataa la soo waco oo la dhaho ilmihi aaway dhibaato aan la kulmo caawinta aan sameynaya dhibaato kala kulmay laakiin alxamdulillah kadib markii la baaray waalidiintooda imaadeen adeerkood dad akhyaar dad bini aadanka shanta farood ilaahay ismid ma ahan dadka saas u kala duween dad way dareemay in caawin aan wacnay dadna waxay dhahayeen ilmihi uu soo qaata laakiin beeco uu ku rabo ku waay war beeca ilmaha ku rabo maxay tahay marka xalana ilmaha lagu maxaday meel walba lagu xadi karaa meel walba xalana horta ilmaha lagu maxaday ilmaha dhumayo banaanka muqdisho laga keenaa hadii xataa xalana la geeyo inkastoo cadeen aan u heen lama rabo moogtaa wax been in la sheego ilmaha gudaha ku jira hadii la xadayo dadkaas aan horta la xadi lahaa qadaab arkay ilmo laga soo saaro wiil Soomaali keena abu waalidkood u wacay aadiya laakiin dhibaato oo dadka waxa qabaan oo jooga magaalada muqdisho in xalana ilmaha lagu dhibaateeyo ma laga yaabaa dad kale oo ilmaha xada inay rabaan inay ku raatirtaan waana iyaga laga shakid waa wax dhici karo waana wax dhici karo in gudaha wax lagu dhibaateeyo maxaa isleedahay marka ilmaha sabab loo xadi karo ayaana ku wadayac waalidkii maxagis horta family problem markuu imaado dhibaatooyin badan ay imaado waxaan u dhahay waxa waaye hooyadii aabaha Afrika ama Soomaaliya dadka joogo markay kala tagaan horta ilmihi meeshay ka baxayaan aabiyana nolol kale oo sameysana hooyadii nolol kale sameysane qurbo kale marka la kala tago xataa inta badan ilmaha waa la soo korsada hadda wadamadan oo la joogo kale amnigooda iska sugan oo ma aragtay hooyadii intii u aragtay cunugaada markuu 13 14 jir xataa ina iskool geesi ka soo wadid waay xaq laakiin ilmihi saaka dugsiga loo diray laga muurhaayo ma soo laabanin oo dhibaato kasta oo beelaha u yahay aad oo maasan tahay maxamed cabdi cali daacad ayuu ahaa وبرنامج كمرتين وقوة هذا وديالو كما سنتين داوشة برنامج كان وحقيب كي هاي ولا عكوس عبسن والدين بدنا يقبان وباهن آد لوجا دوده ورباهن ترى آد وجا هذا الشو حالة كتاعن مقالة مقدسة مدة رأيي سوجر تعرين تنواه إن لو هي عقول بدنا الصوماليات ولولا يا جودا مقالة مقدسة لقى يا بين سيابا قلت اللوجا فايدستو الدون كمركل لاجو حجرة ودمنا أي لوجا يا عرور ودمنا جمهور إنجليز كمعنى البحر على لوايا مركا عرور تسلوين أيوة حي سلك وهين كران ضد بيئة بابولان له oo laga yaabo carruurta inay ku shaqaystaan ama siyaabo kale u isticmaalaan marka waxay u baahan tahay in loo istaago oo wacyigelinta la xoojiyo marka horena mas'uuliyadda cid iskale lagu xisaabtamo ah in waalidku uu carruurtiisa gacanta ku hayo oo isha ku hayo oo mar walba la socdo daawadayaal mahadsantihiin waan ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkan intaynu mar kale kulmi doono waxaan ilaahay nabad gala wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu si aad mar walba u hesho barnaamijyada ka baahan noolaato oo dhammaystiran waxaad u baahan tahay inaad rukumato ama subscriber ka noqoto barta YouTube-ka adiga oo markiiba heli doono barnaamijka markii aan soo galino waad ku mahadsan tahay ku xirnaanshaha ha noolaato taageeradiinu wax weyn bay noo tahay mahadsanid